بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبين السعين على أمور الدنيا والدين قدوميها هيدا دوريسة تيدا قدوميها هيدا كوميشنكا قاسمها جودة وزارة تمرتي معدنتا قاسمها جودة كوميشنكا تمرتا يدمان مرت الشرف توحنكم السلام سلامة السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحد شوقة دمان مالك شرياشي تمرتا ودن بعد شوقة واحد شوقة dadkii professionalka ahaa hawshan ku hawlanaa maanta waxa weey marka kulan ka duwan oo aynu kaga fikirayno mustaqbalka ummadda Soomaaliland sidaynu dariiq ugu jeexi lahayd ay Soomaaliland ay ku heli lahayn koronto la isku halayn karo la awoodi karo oo teedeeduna fiican tahay siyaasadda dawladda waxay tahay in qarankan ama ummadda Soomaaliland ay hesho koronto la isku halayn karo qiimaheedu jaban yahay la awoodi karana sita loo gaaro qodobo badan baa wax badan baa ku xeeran mechanisms fara badan bay leedahay waxay u baahan tahay marka hore in shuruucdeedii iyo istiraatiijiyadeedii iyo siyaasadeedii aynu meel dhigno runtiina waan filayaa inaynu hadda siyaasadii aynu ku hogaamin lahayn istiraatiijiyadii halka aynu gaarsiin lahayn aynu ka wada shaqaynay anagoo aad uga mahad celinayna shirkadaha korontada in qiimaha hoos loo dhigo targetka dawladuna wuxuu yahay runtii 5 sano ee xukuumaddu joogto in la gaarsiiyo 20 senti in la gaarsiiyo 5 sanadood laakiin si adag looga wada shaqeeyo shirkadaheennuna halkii ay ku gaari lahaayeen halkaas la dhiirigeliyay inay tabarta cusboonaata ka dhaliyaan dabka oo aynu ka guurno mashiinadan cunaya shidaalka faraha badan madashan maanta aynu joogno waa madal furan laba cishay noo socon doontaa waxaynu ka dooni doonaa sanadkiina soo dhaafay caqabadihii nagu yimiday hawlihii aynu doonaynay inaynu qabanno sanadka soo socda qorshayaashaanu leenahay sidii lagu gaari lahaa inagoo iskaashanayna dhammaan stakeholderska halkan jooga ugu dambaynna u bedelayna fulin action points halkan ka soo baxay inuu bedelayna fulin waxaan rajaynayaa labada cisho inuu ka soo bixi doono markaynu maskaxda tuujinno wax ummadan anfacaya mustaqbalka dhow ka dhaxe iyo ka fog aynu tiigsanayno inaynu gaadhno insha Allah